madax dhaqameedka galbeedka gobolka Sanaag gaar ahaan beesha Muuse Abokor oo warbaahinta la hadlay ayaa tacsi ka diray marxuun shalay lagu dilay deegaanka Doobley oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana ay baaq nabadeed u direen beesha uu ka soo jeedo marxuunkaasi shalay halkaasi deegaankaasi lagu dilay waxaana ugu baaqeen in nabadgelyo ay kala wada shaqeeyaan isla markaana ay ku baaqayaan nabadgelyo waxaanay sheegeen in aan arintaasi la isku ogeyn la iskuna raacin balse ay ka dambeeyeen dad qeyr mas'uul ah waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Axmed Yuusuf Maxamed iyo Chief Caaqil Faysal Abokor Xasan iyo Chief Caaqil Cabdiraxmaan Ciid Maxamed iyo Chief Caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac iyo sidoo kale cuqaal kale oo ku helinaysay kulankani waxaanay ku baaqeen baaq nabadgelyo iyo in laga shaqeeyo nabadgelyada deegaanadaasi Chief Caaqil Axmed Yuusuf Maxamuud Axmed Ursingeli waxaanu ka qabanaynaa baaq nabadgelyo baaqaas oo aanu beesha Muuse Abokor ah beeshana Lay Axmed baanu u diraynaa baaqaana waa nabadgelyo waxaanu leenahay geerida shalay halka ka dhacday taasi baanu ka diraynaa taas waa ka tiiraayoon wadad sarqaamiina baa sameeyay wax loo tashaday maaha wax nabadeedni aynu xidhanay jabinaya maaha wax qusaysan maaha waxaanu leenahay hal adkayo sidaas aanu soo jeedinaynaa annaga oo tii hore hawsheedii ku hawshaysan oo wadnay oo la soo soconna baatanna dhacday marka isma qusayaan misana mid walba sideedii baan uga xaalaynaa labada hawloodba waxaanu leenahay beeshana Lay Axmed waxaanu leenahay baaq iyo nabadgelyo wayno keeni waxa dadka xunxumi jabiyayna insha Allah laga dulqaato samriyo iimaan laga qaato intaanu aan isku soo gaadno intaasaanu soo diraynaa anigoo ah Chief Caaqil Faysal Abokor Xasan waxaan halka kan aanu tacsi uga diraynaa beeshana Lay Axmed iyo qaar ahaan qoyskii uu ka baxay marxuumkaasi arrintaasina waa arrin dad qeyr mas'uul ay sameeyeen ma aha arrin cid kale ka dambeysay dad qeyr mas'uul ah sameeyay tan iyo tii horeba waxaanu leenahay walaalahayo nabadgelyo iyo wanaag waynoo halkiisii arrintaana waxbaanu ka qabanaynaa haddaanu nahay beesha Muuse Abokor halkan waxa jooga waayeelkii gobolka Sanaag madax dhaqameedkiisii iyo waayeelkiisii waxaanu leenahay si wanaagsan baanu wax uga qabanaynaa waajibkeedaanu ka qaadanaynaa dadka arrintaas sameeyay waa dad qeyr mas'uul ah tan iyo tii hore wax xidhiidh ay leeyihiin ma jirto tanna waa dadka qeyr mas'uulka waxaanu tolweynaha leenahay Lay Axmed nabad iyo wanaag waa inoo halkiisii gobolka nabad iyo baa lagu wada nabadgelyo lagu wada noolaa waxa halka dhacay ee dadka qeyr mas'uulka ah aanu anaga ay sameeyeen waxbaanu ka qabanaynaa si degdeg ah u arki doontaan waxaan leenahay walaalayaal nabadu waa inoo halkeedii wanaagga waa inoo halkeedii iyo wada deganaashihii iyo walaalnimadii sidaasaanu idin sheegaynaa mar labaad waxaanu tacsi u diraynaa beesha guud iyo gaar ahaan qoyskii uu ka baxay marxuumka ilaahay ha u naxariiste anigoo ah Chief Caaqil Ibrahim Ismaaciil Jaamac Lixle chiefka Baha Faarax anigoo ah halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id annagoo ah beesha galbeedka gobolka Sanaag annagoo ah ayaanu shir jaraa'id ku qabanaynaa beesha wala markaan xayiyo Muuse Abokor annagoo ah ayaanu halka shir jaraa'id ku qabanaynaa shirka jaraa'id oo daaran arrintii ka dhacday shalay meesha la yiraahdo Doobley halkan waxaanu ka diraynaa tacsi waxaanu leenahay ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun samriye meel ilaahay maxruumka ay naga siiyo isagana ilaahay u naxariisto baanu leenahay baaqana waa diraynaa baaqaas waxa weeyaan waxaan u diraynaa beeshana Lay Axmed ee aanu dariskanahay ee wada deganahay ee gobolka Sanaag wada deganahay ayaanu baaqa u diraynaa baaqaas waxa weeye baaq nabadgelyo arrinta halka ka dhacday shalay arrin loo tashaday ma aha arrin reer ku kacayna ma aha waa arrin dayday sameeyay ama yaro dayda oo sarqaamiin ayaa arrintaas sameeyay arrin lagu tashaday ma aha arrin colaadeed ma aha waxaan leenahay walaalayaal arrinta sidii wax looga qaban jiray baan wax uga qabanaynaa gacan ku dhigli wax looga qaban jiray ayaan wax uga qabanaynaa nabadgelyo ku baaqaynaa nasuuga baanu leenahay aniga magacayguna waa Chief Caaqil Cabdiraxmaan Ciid Maxamed nabadgelyada gobolka Sanaag lagu wada joogaa waa nabadgelyo qoto fog bay ahayd tii waxaanu qabnaa inaanay arrintani khusayn waxyeelana aanay u geysan karin wax laga tashaday oo la isku ogyahay oo tala reer ku dhacayna maaha waa dadka maartay iska maangaabka ah ee wax magaratada ah ee fidmada la wareegaya
maadaama ay dad dee fidma ay yihiin xaggiinana way joogaan xagga iyagana way joogaan kuwaasi dee haddaynu isku yaacanana qolana mahadin mayso marka waxaynu u baahannahay inaynu dee nabadgelyadii aynu ku wada joognay ee gobolka Sanaag aanay arrintaasi waxba yeelin dhacdadii hore ee ka dhacday isla goobtanna xidhiidh lama laha labadaba waa laba dhacdo aanan maartay annagu raalli ka ahayn waa laba dhacdo oo si khaldan u dhacay tii horena sida aad maartay uga falceliseen ee aad u sugayseen waa idinka mahad celinaynaa inkastoo aad tan dee jawaab ka bixiseenoo dee tuulo la gubay waxaanu leenahay waxba ha ku darina aan isugu nimaadno isku soo gaadhno magacaygu waa caaqil xasan maxamed caweed waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba haddaan nahay waayeelka muuse abakor ee gobolka Sanaag arrintaa ka dhacday boodley waxaanu marka hore ka diraynaa tacsi baanu ka diraynaa ilaahay waxaan u baryaynaa marxuumka halkaa ku geeriyooday in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo marka labaad waxaanu leenahay walaalayaal wax way dhacaan laakiin wuxuu marka ay dhacaan ayay ugu fudud yihiin waxa ugu horeeya unba ugu fudud wixii kaleba waa ka sii xumaadaan waxaanu leenahay wax dambeeyay ka dhicin annaguna arrintaa sidii laga yeeli jiray dhacdooyinka laga yeeli jiray ayaanu annaguna ka yeelaynaa aniga oo ah jiif caaqil xasan faarax godane waxaanu ka qabanaynaa nabadduna waynu halkeedii naaleeye axmed nabad wanaagsan baa noo xidhan nabaddii wanaagsanayd halkeedii bay nooga socon doontaa baaqaa odayaashii waayeelku suuxgaradka muuse abakor soo jeediyeen waan la qabaa anigu reer booda caddaanahay yuusuf cali axmed caaqil yuusuf cali axmed baa la yidhaahdaa nin waliba muuqaalkayga arkaa wuu garanayaa waxaan tacsi uga dirayaa gaar ahaan qoyskii reer yaasiin madoobe sidaasaan tacsidaa u dirayaa arrintaa waa laga xun yahay tolka kalena waa ka xun yahay gaar ahaan iyo guud ahaanba sidii wax looga qaban jiray baa diyaar looga yahay arrintaa waxbaa laga qabanayaa samir iyo wanaag baa muujiseen tii horena dee waa idinka haddii allaba leeyahay si fiican baa ka yeesheen tan maantana dee ku dara hawshaasina wax diyaar ah oo dee loo ahaa ma ahayn wax laga ballamayna ma ahayn sidaasaan u dirayaa baaq nabadeed baan soo jeedinayaa deegaankaana ay dadkaan ka mid ahay waxaan kaloo halkan tacsi uga dirayaa reer yaasiin maxamed xasan waannu nahay dad aannu qoys gaar ah oo isku qoto dheer nahay dhibaatadaa ku timi iyo geeridaa naxdinta leh ee shalay ku timi aad iyo aad baannu uga xunnahay tacsina waannu uga diraynaa insha allaahu bidmillaahi kariim in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo oo ina ka wada siiyo maxaanku idhaahdaa wixii dambena ilaahay nabadgelyo iyo isu imaatin iyo wax ka qabad ilaahay inuu isugu keeno magacaygu waxa weeye maxamed cismaan liibaan jiif caaqil reer Sanaag waa iswada yaqaan arrintaa waayeelkii hore ee iga horreeyey ka soo jeediyey baaqa nabadgelyo ayaan la qabaa taasaannu u dhannahay